هدهد ومهندس نلكو ايغابا لدي شمبركاس ماشي بيهو اي كدو يهيبو نبي سليمان وشيغي جريبا لي نك انجينيردان عيلاشا عرضاي برتان ماشي بيهو اي كدو يهين ديرتاي ايغان ديرتا iyo hawada iyo cimilada iyo ciidda waxanay soo bartaan iyo bini aadamku cilmiga uu bartaa limaada muxuu bini aadamku cilmiga la baranaya laana bini aadamku jahli bay la dhashaan ama xayawaanku baa leeyahay aqoonta way la dhashaan iyo ilaahay baa ku beeray aqoonta shimbarkaasi wuxuu yaqaanaa dhulku eega halka biyuhu 2 mitir bay jiraan halka biyuhu 100 mitir bay jiraan halka biyuhu 1000 mitir bay jiraan dadna markaa nabi Suleymaan buu u sheegi jiray calayhi salaam nabi Suleymaan markaa cafaaridu markaa amar siin jiray cafaarida markaa biyaha markaa soo tuureysay ilaa nabi Suleymaan ilaahay wuxuu siiyay ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ملك عظيمة وإساقة بدي عدا بأنا نقل من بأ إلهي كداكي جنك الله سخري وهذا كشمبرها الله بري وضبيش الله سخري وبورها الله سخري وحيوان كودن الله سخري وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا الكشمبرها اللي بري النبي سليمان عليه السلام قران هل ليس دواقي يجيب النبي سليمان لما قشيو لا دول عدي مركب ملكي قاسين تقول لي يا مركز نبي كشمبرها الله هلايي اي قران انت قران انت لك تحي دواقي يجيب الهي ما قشيه زمن كاسو مرقا شمبركاني وجنود النبي سليمان بو كمدها ماشي بيو يكدو يهين وشيغ جري لان حيوانكو اقونتو ويلا دشان مثال كسو قاد شمبركو بول كيرو شمبركو دغن yahay بول halku ka sameeya boolkaas geedka laanta ugu jilcsan buu boolku ka sameeya laanta uu sameysanayo laanta ugu jilcsan meesha ugu jilcsan ayuu boolkiisa yusuraa markaasuu boolku sidaas kaga ciyaaraa sidaas maalin anagoo meel baadiye joogna tuulo oo xalaqata tacliim baan geedka hoosteeda ku haysanay odayaal markaa reer miyaa nala soo fadhiistay tacliintii markaasaan ku idhi shimbirahani geedkan buulasha ay ku samaysteen meesha laanta halka jilicsan maxay ugu samaysteen bal ii macneeya waxay yidhaahdeen 2 shay buu uga dan leeyahay 2 shay marka hore waa difaac weeyaan waa difaac tukaha iyo maska ayaa ka cuna maaragtaan ukunta ayuu ka cunaa halka marka masku ma gaadhi karo tukuhuna halka kuma joogsan karo hadduu ku joogsado uu dhacaya marka waayo wasniga uu tukuhu u leeyahay laantani ma xajin karayso ilaahay baa ku ilhaamiyay markaas uu dhashiisa u badbaadsado halka ugu jilicsan buu laanta ka suray markaas roob kastoo daa dabayl kastoo timaada geedkoo dhaca mooyaane shimbirka buulkiisu inuu dhaco way adag tahay yaa cilmiga baray yaa ku ilhaamiyay ilaahay markaas aan keen haddana su'aal kale aan weydiin buulka sidan uu galaa shimbirku sidan uu galaa muxuu albaabka laga galay irida muxuusan ugu forriyay oo dhulka u eegaya sidan uu galaa sidan uu dhex fadhiistaa markaa wuxuu waa biyo shub roob kastoo yimaada dhinac kastoo ka yimaada roobkaasi ma galay buu aqalkiisaas yaa barayna injineeradeenu aqalka inay dhisaan imsa sanayd ka qaadata 20 sano waa dhakhtar baa lagu oran muxuu soo bartay saxarada bini aadanka sida loo baaro soo bartay waa dhakhtar baa lagu oran muxuu soo bartay waa dhakhtarka xoolaha daweynayay baa lagu oran xooluhu daweeyaa bas waa injineer muxuu soo bartay
dhoobada sida loo dhisuu soo bartay bas dhoobada waa maxay baa lagu odhan ninkan waa khabiir siyaasiye baa lagu odhan kontonka sane soo socotay isbeddelka geeska afrika ka faallooda salaat alfajrna ma yaqaana sida loo tukado waa khabiir baa lagu odhan khabiir indheer garato muxuu ka faalloon isbeddelka geeska afrika ku imanaya laga waraystaa waa professor baa lagu odhan su-aasha qabrigana ma yaqaano man rabbuka man nabiyuka maa diinuka weli qalbigiisa kuma jirto aqoonta inaku waan baranaa maxaan aqoonta u baranaynaa lianna jahli baan ku dhalanaa inaku wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a ilaahay baa ina sheegay inaan jahli ku dhalanno xayawaanka kale miyaa say ilmahooga u korinayaan meeshay degayeen qaabkay aqallada u dhisanayeen qaabkay u shaqaysanayeen way yaqaanaan waxna meel ma dhigtaan iyaku low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larazaqakum kamaa yarzuqu atayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana buu nebigu uhi calayhi salaatu wassalaam haddaad ilaahay talada u dhiiban lahaydeen ood u tala saaran lahaydeen tala saarashadii xaqa ilaahay uu niigu lahaa sida shimbiraha uu quudiyaa ilaahay nii quudin lahaa shimbirtu khafaskeega waxay ka baxdaa iyadoo caloosheedu ay madhan tahay waxayna soo noqotay iyadoo caloosheedu ay buuxdo yaa arsaaq ilaahay baa arsaaq waxna meel ma dhigatay ogow taqduu khimaasan buu nebigu yidhi faariqata albutuun iyadoo caloosheedu ay madhan tahay bay bixi iyadoo caloosheedu buuxdana way soo noqon dukaanna uma furno beerna uma falno iskuulna ma dhigato ilaahay baa arsaaq وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم دابد أرلا كوركيغا سعونيسا ما جرتو أرزاقات هذا حنبار سنة أيكي إنك بابا إلهي لي أنك أني أرزاقنو أرزاقات أنك أني هينا ما يقانان بري وحي عنيان كما فكران بري وحي عنيان عدة كلية إيه هنقرقوا والولك كوهي وبني آدكو لا تسألني برزق غد كما لا أطلبك بعمل غد إلهي حديث القدس إن آذنوا أرزاقات بري هاي سي ويدين صدر أنكم بواجبك بري أنا كون سي ويدينين ثلاثي بري دور كما لقى الربا هذا ماي بعد العشاء بقى لقى العشاء بقى لقى الربا إلهي بقى كل أرزاقات بري هذا كون هاي سي ويدين دي وايو أنكم بواجبك بري أنا كقولها كم سي ويدين يبي كل يوم بيوم مالين والبا واجب كسالك على حساب تمية هذا كنا مالين والبا أرزاقات ده أنا جاي السوق با إلهي كله أنا كون بلن قاده بركة قودية وإلهي خلق قدنا يا قودية الله تبارك وتعالى بركة مخلوقة سإلهي أبو ري قاركود xiriirka ay diin la yeesheen bay qiimo ku yeesheen sida shimbirka hududka kamida quraanka laga warramay qisadiisa marka bini aadankuna waa ka sixag jira marka hadii bini aadankan ilaahay karaameeyay ee ilaahay uu ka dhigay ashraf al makhluuqaat ilaahay uu ka dhigay haduu nisbad uu la yeesho diinta isagoo bini aadam haduu diinta ilaahay ugu talagalo cilaaqo uu la yeeshana bini aadanku qiimo yeelanaya ugu diintu inay wax ku kordhiso mooyaan waxba ka dhimay mayso diinta dhagax iyo dhul iyo ay iyo shimbir iyo maaragtaan xayawaan qiimo u yeeshay adoo bini aadam oo mukallaf walibana oo ilaahay ku kallifay oo ahkaamta lagu soo dajiyay oo ilaahay jalla wa ala uu nabiga ku soo diray oo kutubna samada adiga darta uga soo dajiyay haday markaa bini aadamku ilaahay ay gartaan ayakuna markaa intay bini aadamku qiimo yeelanayaan walaalayaal
halka inaku aan ku qiimayna bini aadanka maanta markii adduunyo loo dadaalay ashyaadii baa qaalib noqotay marka ashyaadii iyo materialkii ayaa qaalib noo noqotay lacagtii iyo ashyaadii waxaa dhacday in bini aadanka maanta lagu qiyaaso lagu qiimeeyo ashyaadiisa walaakiin zamankii dadku ay wanaagsanaayeen ee diintu ay qiimaha lahayd ee dadku ay diin baranayeen ee dadku diin ka shaqaynayeen ee diin loo dadaalayay ee diin loo dhimanayay ee diin loo dhaqaale bixinayay diinta ayaa markaa dadka agtooda qiimo ku lahayd markaa qofka xasba diinihi baa lagu qiimaynayay halka zamankeenna innaka dadaalkeennii markuu lacag iyo adduunyo iyo qabiil iyo mansab iyo adduunyo uu ku dhacay qofka waxaa ku qiimaynaa xasba dunyaa hasba intuu qofka adduunyo haystaa maanta lagu qiimeeyaa limaada maxaa dadka adduunyo loogu qiimaynayaa maanta dadaalkiibaa adduunyo ku baxay fikirkeenniibaa adduunyo ku baxay dhaqaalaheenniibaa adduunyo ku baxay tadxiyaadkeenniibaa adduunyo ku baxday marka kii adduunyo badan baa maanta qiimaynaynaa maanta ilaa shaygan aad wakhtigaagii oo dhan aad gelisay baa adduunyaa soo maaha kolba kii kaa jeebron baad markaa qiimayn zamankii dadku ay diinta u dadaalayeen ninba ninkuu ka diin fiican yahay baa markaa la qiimaynayay